Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wacan wanaagsan daawadayaal. Kusoo dhawaada muuqaal cusub oo ku saabsan qiso jacayl ah oo dhex martay Khaalid iyo Hoodo. Fadlan hadday tahay markii kugu horreysay ee aad daawato muuqaalkan, subscribe channelka oo naga mid noqo, like de si ay noogu noqoto dhiirigelin iyo horu socod. Commenti fiicanna hoosta noogu reeb. Qisada Hoodo iyo Khaalid waxay ku bilaabmaysaa sida: wuxuu ahaa wiil aad u wanaagsan, wuxuuna ka mid ahaa ardayda loogu jecel yahay jaamacadda. Khaalid waa bulshaawi xadaari ah. Khaalid waa danyar balse kama muuqato oo qalbiga ayuu qani ka yahay. Khaalid gelinka hore wuxuu tagaa jaamacadda, gelinka dambena wuxuu ka xoogsadaa huteel. Hoodo marnaba kamay filayn in ay halkan oo kale ku aragto, balse waxay u khashooday siduu iskugu kalsoon yahay una ilaashanayo shaqadiisa iyo waxbarashadiisa. Inkastay markii hore qalbiga iskala hadashay Hoodo oo ay istiri Khaalid muu iska kaa qariyo. Khaalid wuxuu aad ugu faraxsan yahay aragtida Hoodo, wuxuuna u arkay in ay tahay fursad dahabi ah, sababtoo ah weli qalbiga Khaalid muu soo bandhigin ujeedadiisii uu ku doonayay Hoodo. Khaalid wuxuu isku dayay in uu Hoodo u sheego arrin muhiim ah in uu u leeyahay, balse waxaa jaaniska uu quudaraynayay ka dhicisiiyay gabadh habaryar u ah Hoodo oo la socotay. Hoodo waa gabadh Khaaliqu ku manaystay qurux oo jidhkeeda laga ilaaliyay xubin la naco. Hoodo waa gabadh xishood badan oo hadal gaaban, isla markaasi waalidkeedu ku soo koriyeen tarbiyad wacan, taas oo dhalisay inay noqoto gabadh had iyo jeer asturan. Waana hablaha dhif iyo naadirka ah ee ugu ixtiraamka badan jaamacadda. Koox uu Khaalid ka mid yahay waxay abaabuleen in ardaydu u baxdo dalxiis, sidaa darteed Professor Aadan oo ka mid ah professorada jaamacadda arrintaasi wuu ansixiyay, wuuna u oggolaaday dalxiiska ardayda. Abaar 5tii subaxnimo ayuu Khaalid u kacay tabaabusho iyo isku diyaarin dalxiiska ah. Dalxiiska magaca loo bixiyay wuxuu ahaa dalxiiskii caashiqa. Waa koox dhalinyar ah isla markaana ku bahoobay jaamacadda ay wada dhiganayeen, waxayna ka koobnaayeen 15 wiil iyo 10 gabdhood. Waxaa dalxiiska si farshaxanimo ah u soo diyaariyay koox uu Khaalid ka mid yahay. Dhammaan kooxdani aad ayay u xiiseynayeen dalxiiska. Maalin Sabti ah ayay baxeen. Qof kasta oo ka mid ah dalxiisayaashu aroor horeba wuu is diyaariyay. Xiisaha iyo xamaasadda ay u hayeen awgeed, waxaa isna is diyaariyay gaadiidkii ay raaci lahaayeen oo kala ahaa bas iyo Land Cruiser. Waqtigu waa guu, dhulkana aad ayuu u rooban yahay. Goobta dalxiiska loo tagayana waa dhul badanaa dadku u dalxiis tagaan, waxayna caan ku tahay bad, buuro, daruuro iyo dhul cagaaran oo geedo leh. Saacaddu markay maraysay 6dii subaxnimo, wuxuu qof kastaa heegan ku ahaa kursiga gaadhiga. Professor Aadan markuu hubsaday in ardaydu dhan tahay ayuu fadhiistay kursigii loogu talagalay. 6:15 subaxnimo ayay ka amabaxeen magaaladii ay joogeen. Dhammaan dalxiisayaashu waxay sitaan sahaydoodii. Aad ayay ugu faraxsan yihiin dalxiiska.
Intay jidka ku sii jireen, waxay gudaha baska ka bilaabeen hadallo kaftan ah. Dhammaan waa dhalinyaro, waxay farxadooda u dheerayd labiska quruxda badan ee ay xidhan yihiin. Muddo saacadood ay ku qaadatay in ay gaadhiga meesha u socdaan. Markay dhammaantood dhulka cagaha soo dhigeen, waxay indhaha la raaceen muuqaalka yaabka leh ee uu dhulku leeyahay, iyo neecawda macaan ee ka dhacaysa. Waa goor barqa ah, jawiguna aad ayuu u macaan yahay. Professor Aadan wuxuu ardayda ku wargeliyay in ay fasax yihiin bilowga dalxiiska, wuxuuna u digay meelaha khatarta ah. Kadib, ardaydii iyagoo isku qaybiyay dhowr kooxood ayay koox waliba jiha u dhaqaaqday. Khalid wuxuu ka mid ahaa ardayda ugu muddo karsan jaamacadda, isla markaana wuxuu ka mid ahaa xubnihii fikradda keenay in dalxiiska loo baxo. Balse Khalid maalintan waxay u ahayd maalin ka duwan maalmaha kale, sababtoo ah waxay maalintan ku cusbaa dareen xiise geliyay naftiisa. Oo markuu baska ka soo degay, indhihiisu waxay si toos ah ugu dhaceen Hoodo, oo intay ardaydu dhulka daawanayeen, isagu wuxuu ku jeeday gabadhan. Fallaadhaha cadceedda iyo laydha macaan, jawiga xasilloon iyo labiska qurxoon ee Hoodo wadato, iyo farxadda ka muuqata ayaa mar keliya iskugu beegmay. Waxaa halkaa ka dhalatay in Khalid uu dareemo xiiso iyo kalgacayl zaid ah, maadaama ay Hoodo tahay gabadh aad loo ilaaliyo. Waxaa maalintaana la socotay habeerteed, waxaana adkaatay siduu Khalid ula kulmi lahaa Hoodo. Waxa gelinka hore la soo wareegaba waxay gaadhay duhur, isla markaa waxaa dalxiisayaashii lagu wargeliyay in ay dhammaantood iskugu yimaadaan geed damal ah oo aad u weyn, hadhkiisuna wanaagsan yahay, si loo qadeeyo. Khalid wuxuu codsaday in uu isagu qaybiyo cuntada, waayo wuxuu weli raadinayaa fursad uu kula hadlo Hoodo. Khalid waxa uu cuntadii qaybiyay, wuxuu soo gaadhay bartay fadhiday Hoodo, wuxuuna la kulmay Hoodo iyo habaryarteed, iyo wiil ka mid ah dalxiisayaasha oo gooni u fadhiya. Isagoo qalbiga ka naxay ayaa waxaa dhagihiisa ku soo dhacay hadallo ay isweydaarsanayaan: "Habaryar, wiilkan miyaad iska aqbashid, ayaan ku odhan lahaa." Khalid isagoo ka biyo diidaya hadalkaa ka soo yeedhay Hoodo habaryarteed iyo inanka loo sasabayo, ayuu cuntadii u dhigay. Markuu dib u laabtay ayay la hadashay Hoodo, waxayna ku tidhi, "Walaal, waxba maad cunin, nala fadal." Khalid intuu yidhi mahadsanid ayuu iska dhaqaaqay. Markii la qadeeyay ayaa waxaa la bilaabay sheekooyin iyo kaftan goos ah, balse kamuu qayb gelin. Goor ay casarkii tahay ayaa loo dareeray dhulkii lagu dalxiisayay, balse Khalid kamuu qayb gelin. Wuxuu keligii joogaa buurta agteeda. Hoodo waxay dhalintii ka dhex weyday Khalid, waxaana loo sheegay in Khalid ku sugan yahay baska dhexdiisa. Hoodo intay habaryarteed ku tidhi waan soo noqonayaa, ayay Khalid oo keliya ah u timid. Khalid isaga oo isla maqan ayay Hoodo ku soo jeedisay cod dabacsan. Khalid wuxuu farxad naxay, madaxa ka fuqday, qolof weyn, tin iyo cidhibna wuu jirdhacay. Kadib waxay Hoodo su'aashay waxa dadka ka reebay. Isaga oo jawaabin ayay haddana weydiisay dhowr su'aalood, balse Khalid intuu qalbiga iskala hadlay ayuu go'aansaday in uu badhaadhihiisa caddeeyo. Wuxuuna yidhi, "Walaal Hoodo, waxaan rabaa inaan kula hadlo, balse iimay suuragelin. Hase yeeshee waxaan maanta kuu sheegayaa